saamaynta social anxiety walwalka joogtada aynu ka hadlaynay ee caruurta ku iman kara saamayn noocee ah ayay ku yeelan kartaa xaggeyna saamaynta ku dhici kartaa kow waxay ku dhici kartaa saamaynta qaabkay u fikiraan maantoo dhan waxay odhanayaan armaa laygu qoslaa armaan fashilmaa armaan khalad sameeyaa wuxuu ku jirayaa ilmaha marka inuu ka baqo inuu hawl sameeyo wuxuu noqonayaa waxa la yidhaha perfectionist oo haddaana boqolkiiba boqol hagaajin karin waxaan ma rabo inaan dhex galo waxaa jira saameyn iyadana xagga academicska iyo waxbarashada oo ah fear of raising hands gacanta inay taagaan oo su-aasha ka jawaabaan way ka baqayaan presentation inay la sameeyaan group ardaya way ka baqayaan walwal cabsiyaa ku jira kalsoonidooda dhaawacan sidaa darteed gradeekooda hoos buu u dhici karaa waxbarashadooda dhib baa ku iman kara waxay kaloo leedahay arrintaasi social effect xagga bulshada marka la eego saaxiib ma samaysan karaan way walwalayaan waxaa marka lasoo gudboonaanaya loneliness cidladana waa anaga ka hadalay ilmaha markuu cidloodo caafimaad ahaan waxay ka dhigan tahay 15 xabo oo sigaara qof cabaya waxa caafimaadkiisa ku dhacaya ayay cidladuna ilmaha uga dhigan tahay arrintaasi maamto dhan ku jiraan waxaa laga yaabaa isolation inay isgeliyaan markay u badan tahay iyaga ayaa isgo-doominaya ma rabo cidna inay la sheekaystaan laakiin haddana waxay dadka ula ekaan karaan rude qof dabeecad xun qofaan rabin saaxiib inuu samaysto qof qable u ekaan karaan ma aha calooshooda waxaa ku jira walwal wejigoodaad ka garanaysaa mararka qaarkood waxay leedahay physical symptoms oo ah saamayn xagga jirka maxaa ka mid a calool xanuun iyo wax lamida u fiirso marka social anxiety waxaa la yidhaahdo walwalkan joogtada ah ee caruurta ku dhici kara ee xagga bulshada kaga dhici kara maantoo dhan waxay odhanayaan armaa laygu qoslaa armaan fashilma armaan khaldamaa qofna saaxiibka ma dhigan karaan iskuma kalsoona waxaa ku dhici kara low self esteem inay hoos isku quursadaan waxyaabahaasoo dhan waa qayb ka mida saamaynta walwalkan awlaadda ka haysta bulshada markay hortaagan yihiin indhaha bulshada hortaagan yihiin ama kalaas ha noqdo ama masjid ha noqdo ama baark iyo meel lagu ciyaaro ha noqdo waa wax lasoo gudboonaan kara xalka maxaa ah kala soco janaalka waalid legacy ee adiga lagu sameeyey waalid fadlan subscribe. Assalaamu calaykum waraxmatullah.